waxaan rabaa inaan idinla wadaago maanta aragti ku saabsan qayb kamida qurba joogta waddanka joogto kuwa dibadda jira weli kuma jiraan ha u qaadanina marka inaan qurba joog attack ku ahay qurba joog waxaa kamida walaalahay waxaa kamida kuwa aan saaxiibanahay waxaa kamida kuwa aan waalid u ahay qurba joog badan oo wanaagsanna waa aqaanaa marka yaan loo qaadanin dacolaad inaan u sameynaa waxaan ka hadlaa qurba joogta oo waraaba nacas min leeyahay ku jira qurba joogta dollarka jecel inaan ka hadlo mar dhow waxaan xamar ka dhacay mashruuc la leeyahay waa isdhexgalka qurba joog loo bixiyay horta kelmadda qurba joog waa iska isticmaali doonaa laakiin bedelkeeda raadinaynaa qurba joogta iyo kuwa waddanka jooga isdhexgalkooda barnaamijkaas isdhexgalka waa copy and paste waxaana loo kaga keenay markii qurba joogta ay dibadda tagtay ee ugu tageen mujtamac kala diin ah kala dhaqan ah loo sameeyaa isdhexgal laakiin haddii laba Soomaali aan nahay ma aha in loo sameeyo barnaamij isdhexgal leeyahay haddii laakiin adigu soo haysato ajnabi naga duwan oo anan kale aad noo haysto qolo kale ma ogi markaas in aad uga dan leedihiin isdhexgalku inuu noocaas yahay laakiin isdhexgal sida lagu yaqiin waxay ahayd dad kala diin kala dhaqan ee waddan isugu tagay oo aan isdhexgal karin labada mujtamac inay wada noolaadaan loogu talagalay marka barnaamijkaas wuxuu muujinaa in dad kala duwan aan nahay oo wada noolaasho la rabo si ku wada noolaan lahaayeen qurba joogta marka inta markii yimaadeen haddaan ka soo qaadana qaybo waxaa jira contracts qaato oo la talin ah inta badan ay ku shaqeeyaan hal sana la siiyaa waana loo cusboonaysiyaa halkaasaan markuu ka dhamaado waxaa la yidhaha khabiir ayaad ku tahay arrintaas xataa halka sana hadduu tababar ku qaato khibradiisii intuu waddanka ku celi lahay kontract markay ka dhamaatay dibadda waada laakiin kii gudaha joogay haddii contractigaas la sii lahay khibradda uu qaatay sanadkaas uu jooga meesha sanadka dambe wuxuu la aadi lahay ama wasaarad kale ama mujtamaci uga faa'iidin lahay waxay naqanaa marka wax lagu khasaaray la taliyaashaas waddanka jooga haddaan soo koobno waxay qaataan lacag badanaa celcelis qaarna 4,000 oo dollar kuwa qaato waa arkay 16,000 kuwa qaato waa arkay waxay ku lifaaqeen hay'ado caalami ama hay'ado dawliye inuu kala taliyo muxuu kala talinaa wax uuna asiga waxba ka aqaan kuwa kala jiro oo 10 ku qaato aniga baan aqaan weligood waddanka ma imaan mid aan ogahay midna sanadkii hal mar masala laba mar u yimaada bis lacagtiisu waa u socotaa lacagtaas ay qaataan 89 qurba joogtaas la talinta ku qoran waa rag waxaa la yidhaha waddanka Soomaaliya macal gobolada marka la isku daro 820 la taliyaa joogto oo 770 ay yihiin qurba joog celcelis ahaan marka mushaarka ay qaataan waa 6,000 haddii 6,000 lagu dhufto 770 waxay qaataan bishii 4,620,000 haddii mushaarkaas qurba joogta la siiyo loo qaybin lahay kuwa waddanka jooga oo mushaarkooda 500 ay ku filan tahay waxaa shaqo ka heli lahayd 9,240 dhalinyaro ah oo jaamacada ka soo baxday oo waddanka gudihiisa joogta oo haddii xataa ku tarato ay ka dhamaato waxa uu ka faa'iiday intuu shaqeynayna biilka cidda ka dhigay waxa uu ka faa'iideynaya ku kabaayo mujtamaca bari hay'ad kale tigi doona ilaa khibradii haystaa laakiin kale wixiis waa iskala tagaa dakhli kastoo soo galna dibadda u sii socdaa la taliyaashaas markii shaqada ay loo igmaday inay la taliyo ka noqdaan ma yaqaaniin badankooda waxa ugu dhaw iyagoo ajnabiga isu jirjilcinaya inaad aragtisay u raali geliyaan ninkaas ajnabiga oo mushaarka si waxyaabaas tan labaad ma dacaydeenayo waa in waxay ahayd hidaayad tacliin sare waxay leedahay qayb shahaadooyinka lagu baaro in la baaray shahaadooyinkooda waxaa arkay PhD mid wato master mid wato BS mid wato maadooyinka culumta ay leeyihiin waa soo baranay waxay u badiyeen political science international relation shahaadooda bugayna wataan mid culumta sayniska ama dhakhtarnimo ama xoolo ama engineer soo bartay waa yar yahay hadduu soo bartana meel kale uga shaqeeya shaqadiisana waa lagu dhaxfiyaa laakiin asxaabul bug oo shahaado beena mana jirto qaybtii baari lahayd waxa laga yaabaa kii baari lahaa laftiisa loo xil saaray inuu baaro inuu asla wato mid kale shahaado kale oo bug ah taasi dhibay nagu naqata marka ma aha qurba joogto dhan qaarkood badanaa qurba joogto markaa fiiriso aqoonta diintana kuma fiicno ku dhaqankoodana kuma fiicno ha u qaadana kulli inta dibadda ku soo hartay
kuwa badan oo dibadda isaga hara waa aqaana oo aad u wanaagsan oo barmaxado ma weysan adika wiilii gabdho bale gabdho baa u sii bataanay oo meel la tago male laakiin sahan xun noo soo hormariyeen waxay tiraa aqoon ma xumo laakiin aqoontu waxa rabaa qof ay gasho qof wax ku jira ma noo imaan dadka qaar shiribka qaar wuxuu ahaa aqoon horteed igaar ahaw ama indha biyool ahaw aqoonta ka hor in qofnimo ay jirto qofnimadii oo maqan oo qof shahaadan oo taale noo yimid maalin dhawaato waxaan tagay baar liido 6 qurba jooga waxay fadhiyo kursi dhinacayga ay ku sheekaysanayeen observation ka sameeyna bal sheedan kala socday bida aqaan saaxiibkay ku jiray badana waxay ku hadlayaan luqad ajnabi horta waxay joogaan degmada Cabdicasiis afqalaad aqoonta maya waa dad hadda si dhageysto waa dad qiyo ku noola waa dad balwada badan ajnabi iska yaryar badan ka muuqdo waxay dhaliilayaan dadka kale maanta qof ay haystaan oo dadka kale wadanka magaalada ugu yimidana si uu qariyo aqoon yaradiis iyo dadnimo yaradiis asiga ku jirto waa inuu cid kale marka wax ka sheego doodooda marka waxyaabo ugu badan xakamida waxay leeyihiin hebel ayaa dhintay wuxuu ahay Soomaali Canadian haddii cadaalad rabo waa in halkaas loo dhiibo Soomaali Canadian kale UK iyo Norway adiga qaybtiina waa qaadateen waraawan dadka gudaha jooga haddii xataa ka dhimatiin halka kale waa lagu bedela adina way iska raaracdiin rooblan weyn retro guy oo kale mid qurba jooga dhintay dalmaaga waxa waxa leeyahay mid dalmaaga booskaas kale waa wada soo xisaabtu wax kala qaadanay dhalinyaradii kale ee halka la joogtay ee soo muruxnay xaqoodi walaalaha ma ahmiya bas barnaamij isdhexgalad noo keenay hadda sida anagoo ummad kale ah sida waxay hadlaan si dadkii bil caalam kale dad xataa xidigahan oo caalamka kale ka yimid oo online people عملوا هذا حتى مقالوا كوين أي كشيء كنا ومقالوا دول قالوا كيال أكسفورد واشنطن مينيسوتا وترمينولوجيا اللي رأى فرحبوا إنجليز وجمعنا حاجة دي الجوج شو كوين صومالي ما بقبضنا بشيء كان لا هذا متكست حوك شيء كنا فان يواي أرجع ما أذن أغاني أو صومري دتك أقوله هذا الرضا يهلدوا مركب فيرسي وهذا إسكالوي هم نوع كلا هذا الكل سوق هذا كله haddii Soomaali uu ka hadlayo wuxuu leeyahay hadda gaal hebel wuxuu ka qoray boosaas gaal hadda korkismaytiga asaas ka qoray war kuwan maalinta idaacadaha iyo website-yada Soomaalida ama dadka ay ka qorayaan macluumaadka uu ka haysto Soomaaliya goboladeeda waa macluumaad nin ajnabi oo ka qoray bis iyaduna waa dhibaato kale oo haysato qaybta qurbo joogna caska ay aadna soo dirteen haddii dadka baarka fadhiya dhinacooda fadhiya ay fiiriyaan iyaga xaggooda la soo fiiriyo waxa dareemay inay dadku iyaga ka hadlayaan waystaan dad sheekay iska wata xagga fadhiyo waqti ku jirto adinka la idinka sheekayna amal waa sababta oo Xasan Faarax u yiri waxaa noo jooga ajnabi af Soomaali yaqaan oo nalo ajnabi kale noo soo diray ajnabi kalena ilaaliyaan wuxuu wata ajnabiga kontakii ii jooga warqada wata oo dhaay Talyaaniga Ingiriisiga warqadoodii wata kaas waa cadayka waa madow waa ajnabi af Soomaali yaqaan oo ajnabi kale oo soo diray ajnabi kalena loo keenay inay ilaaliyaan maanta dhan kuwaas markaa fiirina madaxay ruuxayaan si dhaqanka gaalada madaxa maanta dhan ruuxaa si loo muujiyo isu akaysiin waxay ka hadlayaan waxay dhaliilayaan hay'adaha Soomaalida caawiya hay'adaha saaseed magaceeda markii ugu horeyso waxa laga yaabaa inuu xamar ku maqlo weligiis ma aqaan markii xagga makhaayad ka shaqeynaya ama taxi ama mashquul u dhaqaaya ama wax idu waa shaqo fiican inta mashquul badan naga wasaqa ma noo nadiifisiin taas khibrad ku leeyihiin ma ka yeelay hotel xamar ana xamar adagana اسمه هين حمر وحكوا له hotel 600 qof ay jiifto waxa ku arkay hotel leel 600 war hal ka wabsado 600 jiifto wala isdul saaraya maxay qurbay ka yimid war magaalada madagana maya iyo ila joogan wuxuu ku jilan yahay hal kale qurba joogo ka soo horeey ama hay'ad dawliye aakhirkiisa bixis waa nin cayl xamar ku qaata marka cuntadiisa iyo jiifkiisa wixii aan ku bixin inuu dhaqso lacag u helo raba qolay kale xalana joogo waa jiraan xalana waa ku aragteen hotel 200 lagu seexay adiga jeebkaaga baa ninka ku jiifiya ka bixinay hadii maanta qof ajnabi ama qof aad shaqo ee magaalada ka soo aadayaan oo dawladda xalana oo ka soo baxayo oo dawladda Soomaaliya xaggeeda soo aadaya staafka iyo baabuurta oo soo raacaya maalintaas 6 ilaa 7 laga qaada lagu beeri karo xalana dhaxdiisa ala baabuur ku raacay safaaradda Ingiriiska ilaa meesha tirinta ka soo baxaya mar bas la soo diray baska $100 waa qofki xamar rab xal uu raaca $100 $1 ka waa laba meel oo soo muuqato dadka ka dhax shaqeysto
الدنيا كله أساسا نقولك hoteelada qaar hadaad tagto hadaad baasboor hadaad qof caadi ah hadaad antago waxba la ima weydiina magaca la iga buuxina testaro meelaha ka shaqeysa aan warshibi laakiin qurbo joogto waxa laga reebaa baasboorka marka dhowr mar inta baasboorka ay alaabtooda dad u dhiibteen boorso faalqa uga tageen waan dhoofi hadda waa baasboorka laga reebay naqatay magaxumo waxay u keenayaan marka qurbo joogta nadiifka ah oo gabdho badan aqaan dibad joog iyo wiil badan ilaahay laga cabsanayo oo dad aad u wanaagsan laakiin kuwa shibig iyo ciidan ba oo waxaana loo soo diray xoolo raadsi ah marka hore waxaa la dhihi jiray madaxweyne dal jooga iyo ra'iisul wasaare qurbo jooga ku bilowna sheekada aad isugu dhacay bal ha laga joojiyay marka wuxuu yidhi qurbo jooga la isugu dar waa isugu darna wixii ka hooseeyay fiir hal sano saddex wasiiraa gudbayso afar tale ciidana gudbayso hoosoo dhan wax ku hakanaya meesha male hal dokumenti uga tagaya xafiiska uu joogana male hore uu sii socdaa marka qurbo joogta waxaan ka hadalnay oo doolarka jecel laakiin kama hadlin tan oo in qurbo joog dalka doolar jecel noo timaado aniga hadda wanaagayba noo ahayd marka 10 ka baran isku silmayna walaalaheen noo faani karaan akhyaarta qurbo joogta marka raalaha iga ahaadaano ma wada aha kulligiin inaan soo hadal qaaday laakiin kuwa naga yaabiyad baa soo dirteen kuwaas naga yaabiyay waa kuwa aan ka hadlayo farqi weyn ayaa u dhaxeeya sideedaba Soomaali iyo Soomaalinimo bini aadan iyo bini aadanimo qurbo joog dal jecel qurbo joog doolar jecel wax weyn u dhaxo kelmadda qurbo joog af carabi أنا كان دل جوجا من الترين أف سومالي أنا كان جيب جوج دل جوجا دهنا كيس أقول كلمة عربي ولا بحري إصلاح قلنا ونوكت وحلينا فرق قرب جوج دولار كجعل وعرقني ولا عليه إن قرب جوج دولار كجعل هرا وصارقنا ولا عليه إن قرب جوج دل كجعل وهالسيد أنا كوكلا لكن بس بقول أجيب إسكوا تام ظروفه كوكلفتي لكن أتوه حين قتيجي رسوم دقائق أقونتيس الملك لو فايدينا من نوع دريمة الضفير كانت أنتوا كلا قوسونا غني موت فلا بدل إني قوسوا الصعدان وأوجايو دولار جعله وحك شيء هذا لكن خايف كبار وحجر واسكت جمكرة وحياة صوت جنتين واسكفيرنا فلا دور علينا واسكجوي كرا جعنا هو جنبنا وهو تاله بل الآن أنا واحد قال هذا تنكله دقك عرورتي نفير أنا بدي أمريكا جوي شاكت نخمينا بصوب البار ويرو يدوعي شنكروس له حام برنا سلانتي رجل رفانت بحياة هذه عروالو دقدر شيكون كاسة مسكحة عنكو حيوطنك كده سايك متى كينا محوي قال محل براد وحوي قال توم أند جيري كان قال كولد جوجا ذلك يسوع دياري مستر بين أو كاغا شيكينا سوبرمان باتمان وقال كولد جوجا عنو قاس دقن كيسو كبر بارا هذا كاس أكفر ديستان جون عنو كيس يا عنو قال ديس أكفر ديستان شيكينا سوبحه لا كلام على ونقلا كمان أن سوبرمان دكتور مستر بين يا لوجا شيكينا قيمت دقن كيس مسكحينا عنو قاغا مرك وحلو دياري إنه فكره سير عنو جون لكن أنا كانت جورجا تقلبين قلت شكر سلو جورجا عدا دكتور قرقو ديو قودة قدح جيرمي جنة عروالة أنت كنا عذي شيكوي كاسي كذا مركو حد درينا حتى عنقاجا عنقاجا بالروح وبعد دوران وحن الله إصلاح قال مركز كنا غبما كنا وحوك شيكينا كاجا سوبر بالي وحن لا قال توم إنجيريس برصدي أنا تو عوارس برصدي نين أو شيء سيكولوجيكال هويديس أو إندورو ملكتوري أسأل أني أنا مدكتي بالميس بوركتوري وحياة عنق الود درسينا حق والدك وكذا لكن هذه المها دوكيت مشروع حد نقول بالله هذا بالله ده بدنا اسفهم وين ايش حق لها نولص سي ددك الدين كلا دقن بري المانا ما حدو مالينا انا المان سو دير لح بلود انت هجوغ انا قرحان انا لا قيبسدان ها اركانو حقيقه كجرت ودكيس waxayta ii Soomaali hadii kala soo hadii aad rabto inaad مسؤول بوغا نو اهات او shahaado buga awad fadlan imaad iska dhig dhalashada duruufa ku geysay waa ognahay ku shaqeyso hadii saad imaanayso ama ganacsano ama dhakhtar noo noqo ama wax noo dhis ama xoolo loo daawo raali ana
laakiin maamulkiina waa aragnay qurba joogta oo abu nacaska u badan wada aragnay imaad wadanka 3 sano markaad joogto kadib aan waxa ogolnahay inaad wax hoggaamiye isku xaalad kuma nool adiga ilmaha waxay dhigtaan iskool Santa Maria Hebel School anigana waxay dhigtaan iskool raawugaas inta walwal waxa ku hayo iskoolkaas aqoontiis sida loo horumar lahaa haddana fahamku waa ku bilowda umaleena Puntland khayr Allah siiyo waa badaleenba oo wax waa arkeen baarlamaankooda waxaan filaa 6 qof inuu yahay 5 kaliya qurba joog ah waliba 3 kamida wadanka waxay joogeen 4 sano miya 3 sano madaxweyne waxay keenaa sida aan qurba joogayn oo dal joog kullu waa dal joog ninka baarlamaanka Puntland ku jira tuulo qarna ka yimid tuulo Boosaas ka yimid tuulo Garow ka yimid wuxuu ka fikiraa xaaladda ilmihiisa iyo dadka deegaanka isku la noolay ama maskaxdiisa ku jirto laakiin baarlamaanka keenaa 42 ay kaliya Ingiriis ka timid isku maslaxa ima midna kartaani marka same situation kuma nool marka ku akhyaartaana noo soo dira dibad jooga oo tacbaanka hadda isdhaxgalayna ugu bilaabayna barnaamijkaas isdhaxgalka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maalgelinaysa meel kale oo lacagta laga soo qaaday oo kulleeba gaal wax ka wado kii xagga aad ku hayseen oo soo koobiseen maxaa isdhaxgalnaa hadaba aniga aadan ii aqoonsanayn qof Soomaali oo xaq leedahay oo booski laga dhintay aad leedahay Swedish ka dhintay ana xaq u lahay waa ogahay waa soo jawaabi doontiin waa ku mahadsantiin kuwa wanaagsan wallahi kuwa badan oo wanaagsan inay jiraan aaminsanahay ilaahay iyagana iyago nabada iyaga ilmooda noo keeno kuwa oo tacbaanana waa joogaane iyagana ilaahay soo hanuuniyo kuwa ganacsi noo horumariyo ama isgaarsiin shirkada noo sameeyay ama waxyaabo badan qayb ka qaatay oo idaacada sameeyay telefishin sameeyay jiro oo mujtamaca caadiga ku dhex jiro laakiin kuwa aan aqoon iyo ogaal isku ogeyn siyaasadda wada orday ee la talinaha lagu wada qoro iyo wasiirku xoganaha laga dhigo qaarkood CV-gooda waa haya ilaahay laga cabsaa xaalka ay kooda ilo ana ka hadlay ma aamini kartid laakiin wastaqaaniin bal waxa arki doonaa jawaabtaad bixisiin oo ma hadsantiin walaalahay dhamaantii baraalaha